khalqigiisa waxa u goonida ah inaad u leexiso waa dambi ilaahay laga galo ka ugu weyn adduunkana wuxuu keenayaa inaan dambigaaga haba yaraatee la saamixin aakharana wuxuu keenayaa inay jannadu xaaraan ka tahay naarna aad ku waarayso saas daraadeed mushrik ilaahay habeenka u dambi dhaafi maayo ka labaadeen loo dambi dhaafayni waxa weeyaan waa mushaaxin waa cuqdadlow waa xiqdile ruux xiqdi iyo nacayb qalbiga ugu haya ruux muslim ah asagana loo dhaafi maayo waa cajiib mushrika garanaya kan uurka ka jiran ee muslimiinta colaada u haya ama xiqdiga u haya ama u xanaaqsan maxaa lagu maagay sababtu wax weeyaan u fiirso meesha la geeyay isaga iyo mushrigii baa la isdaba dhig isla isgarab dhigay waa la fogeeyay waxaan meesha ka fahmaynaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dambiyada laga galo kuwa ugu waaweyn waxaa ka mida inuu qalbigaagu jiran yahay oo u jiran yahay dadka ilaahay addoommadiisa ee mu'miniinta ee muslimiinta ah waad nacab tahay xiqdi baad u haysaa xasad baa kugu jira nacayb baa kugu jira waa wixii ilaahay diiday tabaaraka wa tacaala meesha keliyana ma ahe munaasabaad fara badan xiqdiga iyo caloolxumada kugu jirteed muslimka u hayso waxay keenaysaa meelo fara badan inaad ilaahay naxariistiisa ka qado dambi dhaafkiisa ka qado halis u gasho rabbi cadaabkiisa iyo cuquubadiisa tabaaraka wa tacaala waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi maalin kasta oo khamiisa iyo maalin kastaoo isniin ah acmaasha addoommada kor loo qaadaa ilaahay baa acmaasha loo geeyaa markaasaa ilaahay wuxuu u dambi dhaafaa cid kastoo addoommadiisa ka mida ilaa cid mushrigoo ilaahay iyo addoommadiisa xaqii alle ka dhaxaysiiyey mooye yaa kale nin kalaas isagana aan loo dhaafayninoo maalinkaasi isagana aan khamiista iyo jumcada marka acmaasha la qaaday aan loo dambi dhaafaynin waa kee wuxuu nebigu sal lla alay wasalam waa ruuxa isaga iyo walaalkiisa muslimka ay ka dhaxaysa shaxnaa xiqdi uu ka dhaxeeyo alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala labadan xiqdiga iyo xumaanta isu haya dibdhiga arrinkooda u kaadiya ilaa ay ka soo heshiiyaan meelo badan baad qadi marka lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ugu jecel yahay acmaasha wuxuu ugu jecel yahay waxaa ka mida in qalbigaagu saliim yahay qalbigaagu fayow yahay qalbigaagu xaadhan yahay dadka muslimiinta wada jecesha xumaan aadan qalbiga ugu haynin qalbigaagu inuu u fayow yahay nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayaa waxaa la weydiiyey dadka yaa ugu fadli badan rasuul ilaahayo wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam ruux kasta oo maxmuumulqalbi ah saduuqu lisaan qalbigiisu maxmuum yahay carabkiisuna run badan yahay waxay yidhaahdeen garannay midka carabkiisu run badan yahaye qalbigiisa maxmuuma maxaa laga wadaa maanaan fahminen noo caddee wuxuu nebigu yuri sal alla alay wasalam waxaa laga wadaa huwa attaqiyu naqiy waa midka qalbigiisa alla ka cabsi ku jiro qalbigiisuna daahir yahay oo nadiif yahay waa sii wada nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi waa midka qalbigiisa aan dembi ku jirin gardarro iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin hilli iyo khayaana ayna ku jirin xasad uusan qalbigiisa ku jirin kaasaa ilaahay addoommada ilaahay ugu fadli badan uguna jecel yahay saas daraaddeed haddaad qalbiga xumaan ku hayso xaaladahaasi iyo waqtiyadaasi munaasabka qiimaha badan ee laysa saamaxaya waa lagaa reebi waad ka hadhaysaa waa inaad marka qalbigaaga nadiifiso oo aad daahiriso oo aad ka dhigto qalbi saliim oo fayow nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh 3 beri oo isku xigtay buu saxaabadiisa uu la fadhiyo wuxuu ku yidhi waxaa idiin soo geli doona nin ahlu janno ah 3 beri ba hal nin baa soo galay ninkii hadday daba galeen saxaabadu ay fiiriyeen war ninkan 3 beri janno looga markhaati kacay xaalkiisu muxuu ahaa
hadday raadiyeen waxaa caddaatay ninkaasi cibaado badan oo uu ragga la dheeryahay ma jirin soom badan iyo salaad badan iyo cibaadaad uu saxaabada kale la dheeryahay ma soo bixin laakiin maxaa la helay waxaa la helay oo uu sheegay hal habeen ama seexanin anigoo qalbigayga ruux muslima xumaan ugu haya waa midda uu meesha ku gaadhay waay sidaas daraaddeed haddaad ilaahay dembi dhaafkiisa rabto iyo acmaashaada in meel fiican la geeyo qalbigaaga ka shaqeeyo hagaaji xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta iska saaro iska nadiif allah tabaaraka wa tacaala mu'miniinta markuu tilmaamayay 3 qaybood buu ka dhigay fi suurati al-hashr qaar waa muhaajiriin qaarna waa ansaar qaarna waa qolada saddexaad oo tilmaantan la siiyo walladina jaa'u min ba'dihim labada gadaashooda kuwa yimid ee mu'miniinta damba ah ee dib ka yimid yaquluuna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iiman waxay dhahayaan rabbiga noo dambi dhaaf annaga iyo walaalahanagii nooga horeeyay iimaanka noo dambi dhaaf wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina aamanu qalbiga naga allah xiqdiha gelinin xiqdi aanu hayno dadka mu'miniinta ilaahu qalbiga hanaga gelin marka xiqdi haduu qalbigaaga haysto dib kugu filani waa ku hayaa dib in kugu filani waa ku haysataa aimada salafka ridwaanullaahi calayhim qaar kamida waxay ku fasireen xadiidkaas uu nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenka shacbaan ay kala baranto ilaahay waa u dambi dhaafaa adoomadiisa ilaa mushrik iyo mushaahin mooyee aimada salafka qaar kamida waxay ku fasireen mushaahinka waxa laga wadaa waa ninka saxaabada nabiga sallallahu alayhi wasallam uqdada iyo nacaybka u haya sida imaam awzaa'i alayhi rahmatullah ku fasiray waxaan shaki ku jirin xiqdiga kugu jira dadka aad u hayso sida ay ilaahay ugu kala dhow yihiin buu dambigu u kala weyn yahay dad xiqdi iyo xasad iyo nacayb loo qaado waxa ugu daran uguna dambi weyn saxaabadii nabiga sallallahu rabbi wa salaamu alayhi lianna waxay ahaayeen awliyadii ilaahay doortay ummadda nabi maxamed ka xushay saabiqiintii bay ahaayeen ardadii nabi maxamed bay ahaayeen kuwii quraanka iyo sunnadaba lagu amaanay lagu taskiyay bay ahaayeen kuwa markaad xaqdi iyo xasad u qaado shaki ma laha hadaadan gaal ahayn ina dambiile xaq aad uga fog inaad maayil ilaahi tabaaraka wa taala quraanka kariimka wuxuu ku sheegay markuu ka hadlay saxaabadii nabiga iyo siday nabiga u garab istaageen u xoojiyeen ay dhinacyaha uga galeen oo diinta u xoojiyeen allah wuxuu yiri tabaaraka wa taala liyaghiidha bihimul kuffar gaalada in lagaga xanaajiyo oo ciil la bado daraadeed buu allah saa u yeelay ninka xanaaqsan ee ciilkii cadhada u haya saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam aayada waxa laga qaadanayaa inuusan muslim ahayn aymadii salafka qaar kamidana saa u daliishada ridwaanullaahi calayhim sidaas daraadeed saxaabada inaad cuqdo u qaadaay mas'ala sahlan ma aha cuqdada iyo xiqdiga la qaadato ugu culus waay waxa soo raaca aymadii salafka ridwaanullaahi calayhim ardadii saxaabadu taabiciintii kuwii ka dambeeyay aymadii saddexdii qarni culimada muslimiinta ee sunnada u taagan ee diinta faafinaya kuwaasa ugu daran inaad xiqdi iyo cuqdad u qaado dadka kale muslimiinta guud ahaan ayaguna waa soo galayaan maxay nabigu ma kala qaadinta salawaatu rabbi wa salaamu alayhi laakiin way sii kala culus tahay saas daraadeed xiqdiga shiicada iyo raafidadu ayda ay saxaabadii nabiga caayayaan xiqdiga ay u qabaan colaada ay u qabaan nacaybka ay u qabaan ayagiyo inta raacsanba shaki malaha in ay galayaan xadiidka nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fayaghfiru li jamii'i khalqihi illa limushrikin aw mushahin dad ilaahay doortay markaad adiga ku mashquulsho shaqo ka dhigato ya man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb bu allah tabaaraka wa ta'ala awliyadayda ruuxi la colaytama aniga dagaal u cilaamiyay ha ku tala gala dagaalkayga saxaabadii nabiga ninka ku mashquulsan ee laga kari laayahay
dagaal rabbi tabaaraka wa tacaala ayuu ku jiraa nin ilaahay dagaal la galayna shaki ma laha inuusan marnaba raynaynin oo laga adkaanayo oo ilaahay tabaaraka wa tacaala adduuniya aakharaba uu ciqaabahayo cuqubada rabbi iyo cadaabkiisa inuu halis ugu jiro muslimiintu marka ha ka nabad galeen qalbigaagana u fur yawma laa yanfacu maalun wala banuun illa man ata allaha biqalbin saliim si lagugu dambi dhaafo waa dantaada iyo maslaxadaade cafi dadka saamax walkaadimiina alghayb walcaafina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin haddaad cadhaysantoo dhib aad dareemayso qarso dhibkaaga cadhadaada celi dadkana iska saamax oo cafi alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum abu bakr sidiiq radia allahu tacaala canhu ardaah markuu ku xanaaqay ninkii mistax ibnu athaatha markuu ku xanaaqay oo caaisha dadkii ku been abuurtay ka qayb galay oo beenta faafiyeen abuuradka kadibna uu yidhi dib dambe inaanan u masruufaynin qaraabay ahaayeen ilaahay aayadunu soo dejiyey tabaaraka wa tacaala walaa ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tuu ulil qurba wal masaakiina wal muhaajiriina fi sabiili illah walyafu walyasfaxu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum war miyaydaan jeclayn in ilaahay idiin dhaafo idin saamaxo jawaabtu waa haa waan jecelnahay ilaahay addoommadiisa saamaxa cafiya qalbiga u fura u naseexeeya muslimiinta jeclow midka qalloocsanee dembiga kale dembigiisa nac laakiin isaga ha nicil dembiga iyo ahwaada iyo xumaanta lafteedaa la nacaa laakiin shakhsiga muslimka lama naco lamana kahdo lafihiisa waa ruux muslima caasiba ha ahaado sidaas daraaddeed danaha adduunyo dagaalka ku saabsani meel ku geyn maayo xoogaa baa idin dhex maray sax haddii shaxnaaga aad u haysa uu yahay ruuxani yacni fikirka uu xambaarsan yahay baa wuxuu yahay fikir khariban diin ahaan baad uga hijrooto wuxuu watiya mabdi'iisa khaldan taasi waa mas'alo kale laakiin waxaad